kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada warbixin dheer oo aanu ku jeexjeexi doono hadba dhinacna aanu ka eegi doono sababta Mareykanka iyo Iiraan midba midka kale uu u necab yahay iyo waxa dagaalkoodan salka uu ku hayo waxaad nagala socotaan Wardhowr Media haddaba haddii aanu guda galno warbixinta haddii aad ka walwalsan tahay dagaal u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan kaliya ma tihid labada wadan waxa ay ku dagaalamayeen harkooda sanado badan waayadan dambase waxa muuqata in dagaalkaasi ay labada wadan ay harkooda ay ku dagaalamayeen uu aad u sii khatar badnaado isla markaasina uu u gudbo marxalad labada wadan ay si toos ah faraha ay isku saaraan laakiin sidee baanu halka ku nimid sababteeba Mareykanka iyo Iiraan ay kaalinta koowaad u galaan mar walba oo laga hadlayo laba wadan oo khilaaf amaba colaade ay ka dhaxayso maxaa sii kordhiyay colaadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan haddaba lacalla haddii Iiraan iyo Mareykanku ay dagaalamaan xaaladdu sidee bay noqonaysaa waxa soo socda waa jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan is-hortaaga iyo colaaddii u dambeysay ee Mareykanka iyo Iiraan iyo sababta aad u neefsan karto wax yar oo sahlan ugu yaraan haddaba isweydii maxay Mareykanka iyo Iiraan ay isu necab yihiin amaba midba midka kale uu u necab yahay ma fahmi kartid khilaafka ka dhex taagan Mareykanka iyo Iiraan adoo kaliya eegaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay sababtoo ah ku dhawaaqista dagaal furan oo u dhaxeeya labada wadan waa natiijadii ka dhalatay qiyaas 70 sano ka hor taariikhda sanadkii 1951 muwaadin garabka bidix ah oo la yiraahdo Maxamed Musaddiq ayaa waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha wadankaasi Iiraan iyada oo loo marayo doorasho dimuqraadi ah Musaddiq waxa uu si adag uga soo horjeestay faragelinta shisheeye ee Iiraan gaar ahaanna warshadaheeda saliidda oo qayb weyn ay markaasi faraha ay kula jirtay dawladda Ingiriiska maalmo kadib markii Musaddiq uu noqday ra'iisul wasaare baarlamaanka Iiraan waxa uu ansixiyay sharci u horseedaya in uu qarameeyo shirkad weyn oo saliidda ah oo laga leeyahay wadankaasi Ingiriiska oo ku taala dalka Iiraan qoraaga caanka ah ee lagu magacaabo Stephen Kinzer ayaa ku tilmaamay shirkadaasi saliidda ee Ingiriiska uu ku lahaa wadankaasi Iiraan inay ahayd tan ugu waxtarka badan meel kasta oo adduunka ah waxayna rabeen in ay markaasi ay dib u soo ceshadaan si taasi loo sameeyo waxa ay weydiisteen Mareykanka in ay ka caawiyaan sidii ay markaasi u afgambin lahaayeen ra'iisul wasaare Musaddiq oo xilligaasi ka talinayay dalka Iiraan Mareykanku waa uu ogolaaday waana halkii markaa CIA-da Mareykanka howlgalkeedii Ajax uu ka dhashay wadajir ahaan labada wadan ee reer galbeedka ah ayaa waxa ay taageereen markaa afgambigii xukunka looga riday ra'iisul wasaare Musaddiq 1953 iyaga oo ku bedelay dawladdiisa xukun boqortooyo buuxda oo uu wadankaasi xukumayay shaahi wadankaasi Iiraan Maxamed Reza Pahlavi 26 sanadood ee xigay Mareykanku waxa uu aad u taageeray isla markaasina uu hubeeyay xukuumaddii Shaah kaasi oo dadka wadanka Iiraan kula dhaqmayay qaab kale tilisnimo ah oo arxan daran isagoo markaasi jir dilay kuwii ka soo horjeeday laakiin waxa la arkayay in xukuumadda Washington ay mowqifkeedu uu yahay markaasi mid cad oo xulufo la ah shaahi wadanka Iiraan si markaasi looga hortago shuuciga Soofiyeed haddaba sanadkii 1979 markii Iiraaniyiinta ay ka soo horjeesteen xukunkii Shaah Mareykanku si ballaaran ayuu waxa uu u ahaa markaa mid isla saxsan oo loo arkayay in uu ku adkaysanayo dambiyadiisa heesta caanka ah ee Iiraan ee dhimashada Amerika ayaa waxa ay ka mid ahayd waxyaabihii markaa kacdoonkaasi wadankaasi Iiraan ka dhashay lagu heesayay jamhuuriyadda islaamiga ee xakamaysay Shaah ayaa waxa ay ka dhigtay markaa in Mareykanku uu yahay udub dhexaadka fikirkeeda haddaba kacaankaasi waxaa hogaaminayay Ruuxullah Khomeini kaasi oo markaasi Mareykanka ku tilmaamay in uu yahay shaydaan weyn bishii November 1979 koox adag oo ka mid ah ardayda wadankaasi Iiraan ayaa waxa ay gacanta ay ku dhigaan amaba ay la wareegeen safaaraddii Mareykanka ee Tehran iyaga oo afduubtay 52 Amerikaana
taasoo natiijadeedu ay noqotay markaa ismariwaa socday muddo 444 maalmood ah oo ay ku jiraan markaasi isku day Mareykanka uu isku dayay in ay helicopter ay ku badbaadiyaan dadkaasi laga afduubtay. waxaana amarkaasi bixiyay xilligaasi madaxweynihii waddankaasi Jimmy Carter. arrintani ayaa waxa ay si aan macquul ahayn ay u qeexaysaa aragtida Mareykanka ee dhalinyarada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee markaasi cadowgu ah dalkaasi Mareykanka. dhaxalgalkeeda ayaa weli la dareemayaa maanta. madaxweyne Trump ayaa dhowaan waxa uu ku hanjabay in uu weerari doono 52 goobood oo Iiraan ay leedahay si uu u muujiyo 52 Mareykanka ahaa ee lagu qafaashay safaaradda. labadan dhacdo ayaa noqday dhaxalkii Mareykanka ee siyaasadda Iiraan faragelintii uu ku sameeyay, waxaana ay keentay markaasi in xiriirka labada dowladood waa Iiraan iyo Mareykanka ee sanadihii dambe ay aad u sii xumaadeen. laakiin waxay ahayd ujeedooyinka siyaasadaha isku dhaca ee labada wadan ee Iiraan iyo Mareykanka oo runtii ku xidhnaa nacaybkooda. Jamhuuriyadda Islaamiga ee da'da yar waxay ahayd nidaam kacaan ah oo ka jiray waddankaasi Iiraan, taasoo ujeedkeedu uu ahaa markaasi in ay ka iibiyaan wadamada bariga dhexe abuuritaanka kacdoon ka dhaca bariga dhexe oo dhan. tani waxa ay horseeday in ay ku koraan markaasi xoogagga maleeshiyaadka matalaya dalal ka mid ah bariga dhexe sida dalkaasi Lubnaan oo ay ka soo baxeen kooxdii Xisbullah iyo weliba iska hor imaadyadii khaliijka Carabta sida Sacuudiga oo ka baqay kacdoon ka dhex dhaca dadka laga tirada badan yahay ee Shiicada. wadamadan awoodda leh ayaa Israa'iil garab ka helayay qaar ka mid ah xulufada ugu weyn Mareykanka ee bariga dhexe, taasoo la micno ah in isku dayga Iiraan ee ah in uu ka hortago heerka siyaasadeed ee ka jira gobolka waxa uu keenay dagaal toos ah oo Mareykanka ah. bilowgii bishii Maarch 1980 qiimaynta sirdoonka ee CIA-da Mareykanku waxa ay ku tilmaamtay Iiraan mid khatar ku ah danaha muhiimka ah ee Mareykanka, waxayna ka hortagtay dadaalada Iiraan ay ku ballaarinayso saameyntooda ah ujeeddo siyaasadeed oo khusaysa oo muhiim u ah iyaga. natiijaduna waxay ahayd isku dhac soo noqnoqda. markii Ciraaq ay weerartay Iiraan 1980 Mareykanku waxa uu siiyay Ciraaq $2 bilyan oo gargaar ah, waxaana xitaa uu ka taageeray Saddam Hussein adeegsiga hubka kiimikada ee ka dhanka ah ciidamada waddanka Iiraan. inkastoo maamulka Reagan uu sidoo kale aaminay Saddam, sidaa daraadeedna ay ku ciyaareen labada dhinac mid ka mid ah si qarsoodi ah hubka Iiraan oo qayb ka ah markaa qorshaha wax iska caabinta Iiraan. sanadihii 1980 Iiraan iyada oo adeegsanaysa ciidamadeeda wakiilada kala duwan waxa ay markaasi ka fuliyeen olole ballaaran oo qaraxyo argagixiso oo safaaradaha reer galbeedka iyo bartilmaameedyo kala ah. mid ka mid ah weeraradii ugu xiisaha badnaa uguna dhimashada badnaa ayaa yimid 1983 markii howlwadeennada Xisbullah ay duqeeyeen xero ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin waddankaasi Lubnaan, halkaasi oo ay ku dileen 241 xubnood oo ka tirsan adeegga Mareykanka, iyo xero u dhow oo Faransiisku uu leeyahay, halkaasi oo ay ku dileen 58 ka mid ah askarta militariga Faransiiska iyo 3 rayid ah. 1987 ilaa 1988 ayaa Mareykanka iyo Iiraan waxa ay ku dhaqaaqeen tallaabooyin cadowtinimo taxane ah oo ay markaasi ay ka fuliyeen gacanka Bershiya ee khaliijka, taasi oo qayb ka ahayd waxa loogu yeero amaba waxa loo yaqiinay dagaalkii tanker amaba dagaalkii markabka saliidda. intii lagu guda jiray muddadaasi ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay waxaa si qalad ah oo diyaarad rayid ah oo Iiraan ay leedahay ku weeraray cirka isla markaasina dhulka uu soo dhigay, waxaana halkaasi ku dhintay 290 rakaab ah. iska hor imaadkaasi iyo xiisadaasi u dhaxaysay Iiraan iyo Mareykanka ayaa u muuqday mid markaasi qaboobay muddo kadib. Iiraan waxaa burburiyay 10 sano oo dagaal bahalnimo ah oo ay la galeen Ciraaq, waxaana taasi ay hoos u dhigtay himilooyinkoodii kacaanka, waxayna bilaabeen in ay diiradda ay saaraan walaacyada xagga amniga ah. dhinaca kale Mareykanku waxa uu si aad diiradda u saarayay Saddam Hussein ka waddankaasi Ciraaq dagaalkii koowaad ee khaliijka, laakiin arrimuhu si aad ayay isu bedelayeen wixii ka dambeeyay qaraxyadii daaraha dhaadheer ee Mareykanka lala beegsaday.
markii maamulkii George W. Bush ay bilaabeen astaan u gaar ah oo siyaasadeed oo ay kula dhaqmayaan markaa siyaasadda dibadda gaar ahaana bariga dhexe. madaxweyne Bush waxaa lagu wargeliyey taariikhda dheer ee foosha xun ee iska hor imaadyada Mareykanka iyo Iiraan, taageerada Iiraan ee kooxaha argagixisada wakiilka ka ah sida Xisbullah, iyo mar labaad isku dhacii qarsoodiga ahaa ee ku saabsanaa fikirka ah samaynta hubka nukliyeerka ee waddankaasi Iiraan oo ay markaasi sumadda uga dhigtay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo axis of evil, taasi oo af Soomaali ahaan macnaheedu ay noqonayso ka saarista jinka, iyadoo ay ku weheliyaan markaasi nukliyeerkaasi wadamada Ciraaq iyo Kuuriyada Waqooyi sanadkii 2002. sanadkii xigay Mareykanku waxa uu ku duulay waddanka Ciraaq si uu xukunka uga tuuro Saddam Hussein oo isku dayay in uu sameeyo dimuqraadiyad Mareykanku uu taageersan yahay, taasoo markaasi dhalisay hoggaanka Iiraan in ay ka baqaan in ay ku xigto liiska Mareykanka ee markaasi wadamada uu ku duulayo. dhibaatadii ka dhalatay duulaanka Ciraaq kadib, Iiraan waxa ay dhistay shabakad kooxo mintidiin Shiico ah oo ku sugan waddankaasi Ciraaq, waxayna u ogolaadeen in ay ku sii daayaan ciidamada Mareykanka. tani waxay ahayd dadaal lagu doonayo in lagu ballaariyo saameynta Iiraan ee ay ku leedahay waddankaasi Ciraaq, isla markaana hoos loogu dhigayo Mareykanka ku sugnaanshihiisa Ciraaq si looga hortago nooc kasta oo dagaal ah iyo dabagal ah waddankaasi Iiraan. dadaaladan oo uu hormuud u yahay Qaasim Sulaymaani waxa ay gacan ay ka geysteen abuurista qaar ka mid ah ururada ugu foosha xun uguna waxtarka badan ee kacdoonka ka soo horjeeda Mareykanka, kuwaasi oo si toos ah gacan uga geysta dhimashada boqolaal ciidamada Mareykanka ah. tan iyo xilligaasi Mareykanka iyo Iiraan waxa ay ku loolamayeen istaraatiijiyad aad u xun oo markaasi dilaa ah oo gobolka ka dhacday. laakiin markii ay Mareykanku ay u muuqatay in uu ku daalay faragelinta military ee muuqata inaan weligiis markaasi uusan ka dhammaanayn, ayaa maamullo isdaba joog ah waxa ay bilaabeen in ay isku dayaan in ay yareeyaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe iyo Afghanistan. Iiraan ayaa markaasi jaaniskaasi ka faa'iidaysatay iyada oo si isdaba joog ah u ballaarinaysa saameynteeda gobolka, iyada oo markaasi isku ballaarisay wadamada Ciraaq, Suuriya, Yemen, Afghanistan wixii ka dambeeyay xilligaasi. haddaba su-aasha kale ee isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, waa maxay heshiiska nukliyeerka ee Iiraan, muxuuse muhiim u noqday? qaybo dambe ayaynu ku eegaynaa arrintani. aad baad u mahadsantihiin dhagaysiga warbixinta dheer ee aynu kaga hadlaynay markaa sababta ay Mareykanka iyo Iiraan ay isku necab yihiin iyo weliba waxyaabaha salka uu ku hayo dagaalkoodan. waanu sii wadi doonaa inta aan markaasi warbixintan oo kale aynu ku kulmi doono ama qaybta dambe aanu ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkan, subscribe saar. haddii aad tahay macmiil soo noqdayna ha iloobin inaad markaasi gambaleelka aad furato